waxaa maanta magaalada Garowe tagay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan. waxaa soo dhaweyn diiran u sameeyay dhigiisa Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. labada nin ayaa doonaya inay yeeshaan kulan gaar ah. kulankan waxa uu ku soo aadayaa xilli 20 bishan la filayo inay inta badan maamul goboleedyadu bilaabaan doorashada golaha shacabka. Dani iyo Axmed Madoobe ayaa iswatay siyaasad ahaan tan iyo markii uu farmaajo u bareeray dagaalka Jubbaland. Siciid Dani waa musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. wuxuu isku arkaa ninka qura ee farmaajo ka hor istaagi kara inuu mar labaad ku guuleysto fil Soomaaliya. wuxuu si toos ah dhabarka u xijiyay siyaasiyiintii Muqdisho ee uu dagaalka jilbaha u galiyay. Garowe waxa xilligan lagu qaybsanayaa mirihii mucaaradnimada xilli aanay madashaasi waxba ku lahayn xubnihii mucaaradka ugu halganka qaylada iyo qarash bixinta badnaa. waxaan la hadalnay siyaasiyiin kala duwan si aan wax uga ogaano ujeedka kulanka labada nin. Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu in muddaha ka shaqaynayay in farmaajo uusan siyaasad ahaan u soo kaban. Axmed Madoobe isaguna aanay isku soo noqon. siyaasiyiinta xamar ka soo jeedaahina inay xiisadda sii xoojiyaan gunaanadkan uu ugu yimaado farmaajo itaal daran mucaaradkii oo la karaahsaday iyo Axmed Madoobe oo cidla taagan. waxay u muuqataa in shaqadiisii uu in badan qabsaday laakiin guuxiisa oo xilli hore bannaanka yimid ayaa sababay in mucaaradkii ka aamin baxaan farmaajo isku sameeya isdaahirin siyaasadeed maamul goboleedyadii kale difaac ka galaan dood adagna la duldhigo inuu leeyahay tayo hogaamineed oo samata bixin karta Soomaaliya. markii aan u soo laabanno kulanka Garowe, Axmed Maxamed Islaan dhowr sanatar ayuu Siciid Dani uga soo saaray magaalada Kismaayo halkaas oo lagu doortay 8 xubnood oo aqalka sare ah. sidoo kale Siciid Dani waxa uu maamulay 11 sanatar oo uu aaminsan yahay inuu isagu leeyahay balse waxay wararku sheegayaan inuusan 3 ka mid ah isku haleyn karin kuwaas oo durba farahooda lagu arkay meelo kale. hadda Siciid Dani waxa uu rabaa in Axmed Madoobe iyo isagu ka heshiiyaan inta kursi ee uu uga soo saari karo Jubbaland. Dani waxaa lagu eedeynayaa inuu gacanta ku haysto liis xildhibaano ah oo uu rabo inuu ka soo saarto Puntland. si taas la mid ahna wuxuu Axmed Madoobe ka rabaa inuu u qoro tirada xubnaha uu siin karo si uu lacagtooda u baxsado. xubnahan sida jarka loo kala iibsanayo inay berri cod siin doonaan Siciid Dani waa dood kale oo haddii diiwaankii hore lagu laabtana cabsideeda leh. Axmed Maxamed Islaan wuxuu u muuqdaa siyaasi gudaya abaalaan muuqan. Siciid Dani isagoo og inuusan madaxweyne farmaajo waxba u dhimin Puntland ayuu cadaawad jeebkiisa u sameeyay Puntland iyo farmaajo si uu ugu diyaar garoobo qorshihiisa fil Soomaaliya. inkasta uusan Axmed Madoobe wax gooniya ka faa'iidin dagaal siyaasadeedkii socday oo uu maanta joogo Kismaayadiisii shalay, haddana si guud Siciid Dani ayuu u arkaa nin u xeeytay waqtigii uu jilicsanaa. Jubbaland waxaa taalla 43 kursi oo golaha shacabka ah, laakiin 16 ka mid ah waxaa lagu dooran doonaa magaalada Garbaharey halkaas oo uusan wax badan ka gelin Axmed Madoobe waqtigan. halkay magaalada Kismaayo taallo 27 kursi oo uu go'aanka ugu dambeeyay leeyahay Axmed Maxamed Islaan. kooxda Siciid Dani geed fadhiga u ah ee Aranjan waxay si aan qarsoonayn u sheegayaan in 27kaasi kursi ee Kismaayo taalla inay ka rabaan 20 kursi. marka la eego siday marxaladuhu isku saaran yihiin iyo cariiriga muuqda waa adag tahay in lagu degdego in Siciid Dani qaadan karo xilka madaxweynaha Soomaaliya. laakiin sheekada u baahan fahamka dhabta ah waa sida uu hogaamiyaha Jubbaland u aqbali karo inuu dakana siyaasadeed u galo qof kale dartiis. laakiin kooxdiisa qaar waxay isku qancinayaan inay yihiin shirka siyaasadeed oo raba inay wada qaataan fil Soomaaliya. kulankan kadib labada nin ee Dani iyo Axmed Madoobe waxaa la filayaa inay bilaabi doonaan doorashada golaha shacabka. maxay kula taadiga